meeshaan shalay guri baa ku qarxay musiibadaasna meeliga maad ma garanayna bani aadanka ilaahay baa ka badbaadi caruurha sideed cunug ku jirtay way hurdayeen doonaa argagax iyo maartay qaxitaan ay galeen waxa soo waxay in la garan waayo horaan ba cabsi jirtay xalay abbaare 4 saac oo habeenimo ayaa madfacan weli la xaqiijin halka laga soo tuuray waxa uu ku dhacay guri ku yaala xaafadda Bulla Empire 2 meel u dhow barwaaqo gaar ahaan aaga Cali Bililiqa ee Mandera madfacan ayaa sababay gubasho soo gaaray guriga balse dadka deegaanka ayaa ku guuleystay inay damiyaan dab ka dhashay madfacaasi hal qof ayaa dhaawac fudud soo gaaray kaasoo isku dayay inuu damiyo dabkan halka 8 caruur ay ka badbaadeen goobtaasi kuwaasoo ku jiray guriga madfacaasi uu ku dhacay sida uu sheegay aabaha guriga ciidamada dami baarista ayaana xalay yimid goobtan ayagoo qaaday haraadiga madfaca si baaritaano lagu sameeyo waxa socda baaritaano lagu ogaanayo dhacdadani qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo waliba qoysaska gurigan deganaa ayaa warbaahinta Daawa FM ugu warbixiyay dhacdada ayagoo baaq diray magacaygi anoo waxa la yiraahdaa Junayd Sharifirow alxamdulillah xalayti abara markii la maray 4 fiidnimo ay ma artaayo waxa oo ma artaayo qarax uu nagu soo dhacay qaraxaas asaga ahna ma artaayo ma ogin meel uu ka yimaaday guriga ayaan ku jiray waan jiifnay ilmihii guriga ku jireen iga dhacay kadibna waxa dhacday inaan soo baxo markaan soo kacay kadibna waxa dhacday in oo dabkii uu meel walba qabsado waxaan isku dayay in aan ma artay damin kar waan damin weyn dad ma artay iga ramaqnaa kadibna gurigii ma artay waan jibiyay ilmihii ayaan ka soo bixiyay dhaawacay yarna way naga gaareen ilmihina wax ku dhintay ma aysan jiraan alxamdulillah rabbil caalamiin sidaas daraadeed annaka hadda waxa waa meesha aan joogo waa guriga hortiisii guriga soo gubtay kulleeytay waa on kaamirada ka arki doontiin dib badan ka dhacay ma artaayo hadii nin dibana ayaan ahay meel ay iga imaadeen wixii ma sheegi kari wixii oo ma artay guriga yaalay way ku dameen way ku dhamaadeen way gubteen joodari ma artaayo wixii oo ah alaab ma artaayo raashin wixii dhan way ku gubteen xitaa waxa qarashaad oo noogu jiray lacag xitaa waa iska jirta oo ma artay dab u raacay alxamdulillah hadda ma artay naf maal ma artay isma aysan raacin naftu way noo hartay wixii maal ahna way iska baxeen ilaahay biidnillaahi kariim aan iska heli doonaa caruurha sideed cunug ku jirtay way hurdayeen 8 cunug markaan soo bixinay ku idiiday oo markaayo xoog aan ku soo bixiyo yar gubta jira wallahi ku GBR la dhahayaa imaaday waxay iga qaadeen wixii oo meesha qarax dhacay qaraxi asaga ahna ma artaayo waan wareysanay dheheen ma artaayo alaab ma artaayo xaggeen ah way yiraahdeen markaas ay war dambeysay waxay dhaheen biri 3 saac stationka ayuu wax gurmad ah ma jirto ilaahay ma artaayo weyn laakiin hadda ma artaayo waqti hadda la joogo ma artaa waxay yimaadeen gurmad ma arag salaan kadib meeshaan musiiba ka dhacday waa awood ilaahay aswata ma garanayna meel ay ka imaaday meeshaan shalay guri baa ku qarxay musiibadaasna meeliga maad ma garanayna bani aadanka ilaahay baa ka badbaadi islaamkii meesha joogo jiiraamihi soo gurmaday ilmihii waa la badbaadi guriga waa la damiyay hadii Allah qof baa ku jabay yar baa ku jabay hadii Allah edma markay saas tahay dawladda waxaan ka codsanaynaa arrintan meesha taalo magaalada iyadoo dhib ka jira oo magaalada Kenya dhib ka yaal dhibkana aniga meel aska socda ma aqaan dawlad kale meel kale ka imaada dad oo ma artay dawladda ay meeshaan ku hayso yaas dhibkan ka socda waxaan rabnaa marka dawladda sare iyo midda governorka commissioner iyo hadii DCga dadka meeshaan joogo Kenya leh oo wadankan joogo in la badbaadiyo dawladda dadka maxay u badbaadin laad dadkan hubka haysta maxaa noola dhaxaya maxaa meeshaan looga haya maxaa meeshaan looga gubaya dawladda waxaan ka codsanaynaa hadda aan shicibkanahay oo dadka shicibka ah oo dadka ma artay wadanka jooganay dadkan shicib qoryaha wato magaalada joogo dhinaca laga daji oo shalay biibona ilaahay ba amar leh dadkeeda qaxay oo qaar Itoobiya u gudba qaar Mandera soo galay hadda meesha la degan yahay dawladda waxaan ka codsanaynaa dadkaas inay meel naga saarto wadankooda ha aadaana meesha wadankayna nooga baxaana annaga wadankaas waa dad Soomaali waxba uma raadsano wixii waa dad jiiraan u baana laakiin dad hub wata inay meesha noo soo galaan dadkii shicib soo carar ها والله أمان قلنا مالنا وجوجين
laakiin dab hub wata oo na dhex jooga annaga ammaan ma helayna ammaan waa wayna dawladda waxaan ka codsanaynaa dadkaas inay meel naga saarto waddankooda ay u noqdaan annagana aan nabadgelyo helna saanaa jirta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxay ka dhaceen waxaa waaye Mandera East Bulaambia location Salam Batu xalay markay ahayd والله هذه أفر ساعة بر إلا يشوف هذا يا قرح عم قلنا عشنا إلى مركز مركز ما نيجي وح بنركلنا جرو جبنا أولادي ويحكوا جرون ولا قد حبيه الحمد لله السوق رمود دوينا سوق رمود إلهي نوبت بادي مش أنا واحد إمادي ودولة كترسن إذا ما كيف يا رسول الله كأول شيء إلا هذا واحد قالوا لها يملان marka waxaan u baaqaynaa dawladda iyo county government iyo national government arrinteeda inay meel soo saaraan aad iyo aad u cabsi u jirtay dadweynaha argagax iyo maaragtay qaxitaan ay galeen waxaasoo waxay yihiin aan la garan waayo horaan ba cabsi jirtay marka waxaan rabnaa in maaragtay arrimaha iyada mar dambe nugula celin Ibraahim Nuur Cabdiraxmaan warbaahinta Daawa countiga Mandera